adiga adan kula hadlay ha kale waxay kala sheegtaan labadan arrin ama labadan tusaale kii aad kala dooranaysid maalin maalmaha kamid oo soo kacday gelinka hore soo kacday xilli hore oo maxaan ku dhahay subaxdii baa soo kacday maalintaasna gaajo aad iyo aad ayaa ku haysay meel wax ku cunaysid ma garanaysid gaajadana calooshan waxa ka yiri soo yaabisa qurururo dagaal baa ka dhex socda gaajo xun baa ku macni baa ku haysa man hubtina quraac cuni doontid man hubtina qada cuni doontid man hubta cashina cuni doontid adiga ma garanaysid xilliga soo socda aad wax cuni doontid laakiin sama okay taas waa arrinta labaad kale dhageyso أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا. arrinta labaad maalmaha kamid waa soo kacday isla xilliga kale xilli hore soo kacday salaad subax soo kacday gaajo xun way ku haysaa sidii maalinta camal ay ku haysay bay ku haysaa caloosha dagaal baa ka dhex socda caloosha waa gaajo maxaan ku dhahay la qalashay laakiin samaanta waxaad og tahay salaada duhur kadib in saaxiibka uu ku casuumay arooskiisana aad maanta ka qadey doontid oo xaggaas maxaan ku dhahay sab ama qada ay ka jirto okay marka su'aal baro inaan ku weydiiyo maalin hore gaajo way ku haysay maantana way ku haysaa laakiin maalin hore maada garanay xilliga soo socda aad wax cuni doontid laakiin maanta waa garanaysaa xilliga soo socda aad wax cuni doontid laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labadaa gaajo isku si ma u dareemaysaa markaad garanaysa xilliga soo socda inaad wax cuni doontid oo calooshaada ku dhaysid calooliha waa ku barayaa gaajo way ku haysa oon ogaha laakiin dhib ma laha waxay saacado kadib cunta cuni doontaa maanta qada meel ugu bilamin iyo markii aad maxaan ku dhaha aadan hubin inaad wax cuni doontid aadan garanay xilliga soo socda labadaba gaajo way ku haysaa laakiin xaqiiqadii wallahi labadaa gaajo isku si uma dareemi doontid arrinta xagga ay dhig bal arrinta kale la fiiri maalmaha kamid rasuulka sallallahu alayhi wasallam meel ayuu hurday cumar ayaa soo maray marka rasuulku wuxuu ku hurday darin ama salli ama adika u taqaanid ayuu ku hurday soo cumar wuxuu arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo darinta ku hurda oo salli ku hurda laakiin se darintii baa qabatay iyo dhagaxaan dhulka yaalay ayaa maxaan ku dhahay rasuulka macni feeraha ka galay oo ila darintii ogta maxaan ku dhahay si jarra camal ma aho baa wax yar dhulka dhigay laakiin hadii meesha dhagaxaan iyo cid yaalan wixii macni dafeera ka qaban hadaa meesha ku dul seexatay qadarta marka cumar wuxuu arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dhagaxaantii feeraha ka qabatay ilaa asaga darin daciif uu ku hurdaayo markaas cumar ilintii uu ceshan waayay wuuna ooyay kadib rasuulka soo kacay wuxuu wayaa cidda oonis uu fiiri waa cumar ku dhacay maxaad cumar u oonisaa kadib cumar wuxuu yaa rasuul allah waxa ay cuntamila aan u qaadan laahay adigoo rasuulka ilaahay khayru khalqillaahi inaad ku hurdi maxaan ku dhahay darin ama salli markaasna dhagaxaanta feeraha ka qabtaan kisri qaysna dadkii gaalada ahaana ee ku hurdaa maxaan ku dhahaa sariiro dahab taas yaa rasuulullah ay cunto maxaan ku dhahaa aan u qaadan laahay oo ilinta iga keentay markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri yaa cumar ama tarda an takuna lana al-aakhirah wa lahum ad-dunya ya allah wuxuu cumarow rasuulku wuxuu cumar ku yiri cumarow miyaad raali ka ahayn anaka ina aakhira yeelano iyagana adduunka ay qaataan marka kalimaddaas ayaan waxa rabaa inaan ariyar aan ka fahano okay rasuulku wuxuu rabaa inuu maxaan ku dhahaa cumar uu fahansiiyo cumarow si walbaan adduunka ugu dhibaatoobo aniga dhibaato waan dareemayaa laakiin dhibaatadaas murugo weyn uguma heli doonto waay maxaa yeelay waxaan hubaa aakhira inay iga dambayso xaggaas baana layga abaalmarin doonaa mid baranka inaad ani naftaada teedaan u sheego inta adduunka ku noolahay shaki kuma jiro dhibaato way ku soo maraysaa bal ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri laqad khalaqna al-insana fi kabad bilaanku waxaan ku dhax abuurno maxaan ku dhahay mushkilad dhexdeeda aan ku dhax abuurno oo macnaheedu ay tahay inta nooshahay mushkilo way ku soo mar doontaa hadda maanta aniga hadii la weydiiyo war ka hor maalmo adag oo ku soo maray waxa dhahaysaa wallahi way soo maray markaas dhacday soo hadda bil aadan nahay mushkilo waana soo martay waana soo mari doontaa oo wax maxaan ku dhahay ama muslimad ama gaal ahood way ku soo mari doontaa qof wuxuu dhigaya maxaan ku dhahay hadda koor baan soo rafaaday أنا هذا كوربان فكر كسوكر هذا كوربان أنا كوربان بقى حمية ومحن كده ويفرق كده مركز عروتي وماشي محن كده عروتي وإجتة فقري جانشا كنورا وحي بيلا ما قرني مالان كسر شقيا يتبدأ يعني عروتي حاسك بقى دبي استرس بقى يوالي الرأي قصوا بحر بيار بقى قصوا هربود ورقف والبديبات والشيء يعني لكن اسمي بنكو شيء يعني
haddii markii dhibaato nagu dhacdo markii dhibaato nagu dhacdo haddii aan nafteeda ugu sheekeeyo naf yahay dhib ma laha iska dulqaado waa qadar allahu maa shaa facal laakiinse maanta haddaad naftiya aad sabartid aad dulqaadatid aad dhanka fiican wax ka fiirisid aad dhanka fiican wax ka samaysid nafya waxaa micne ilaah wuxuu kuu ballan qaado aakhiro in insha allah janno uu ku gelin doono aakhira kaa dambaysa naf yahay iskaga dulqaado adduunka yarka haddaa naftaas saas ugu sheekaysid dhibaatada weli waad dareemaysaa laakiinse maxaa dhibaatada murugo aada kuguma ridiso oo stress aada kuguma ridiso laakiinse midaan kuu sheega markii dhibaato kuu dhacdo haddii naftaada aad ugu sheekeyn weydid wixii hadda aan u sheegaya haddii naftaada aad ugu sheekeyn weydid naf yahay iska maxaan ku dhaha iska dulqaado sabran yaa nafsi haddaa micne naftaada ku dhihi weydid iska dulqaado oo maxaan ku dhaha aakhira kaa dambaysa oo maxaan ku dhaha ilaah baa ka abaalmarin doona haddii maanta aad sabartid oo markaasna wax fiican la timaadid haddii hadalaas naftaada aad ugu sheekeyn weydid laakiinse aad ugu sheekaysid waa maxay sababta dhibaatada igu dhacday maxay waxaan aan igu dhacsa ma ilaah baa aniga caraysan qofkii waxaan igu sameeyay waraa maxaa waxaan igu samaysa oo aan ka argoosanaya haddii aakhiro iyo sabir iyo dulqaad waxaad aad naftaada ugu sheekeen aad keliya focus ku noqotay maxay dhibaatada igu dhacday adigu markaas waxaan kuu sheegaa dhibaatadana way ku xanuujinaysaa murugana kugu abuuraysaa walwal aada kugu abuuraysaa so marka dhibaatadana xanuun aad iyo aada kugu abuuraysaa marka qofka markay dhibaato ku dhacdo naftiisa ugu sheekeeya sabran yaa nafsi naftiya iska dulqaado xag dhanka khayrka wax ka fiiyo hore usii socda dhibaatada kasii gudba aana aada uga fikirin qofkaasi ninkaas wuxuu lamid yahay ninkii maxaan ku dhaha adinka sheekeynaya oo ahaa in maxaan ku dhaha ninkii saaka soo toosa asagoo gaajo haysa laakiinse wuxuu hubaa inuu maxaan ku dhaha qado cuni doono saa darta marka ninkaasi gaajadiisa xanuun aada iyo aada kuma abuurayso maxaa yeele marba caloosha qeyraysa wuxuu ku dhahayaa calooliyaha istaji maxaa yeele dhowr saacadood kadib baa qadaynaysaa cunto macaan baa cunaysaa laakiinse qofka markay dhibaato ku dhacdo dhibaatada le ka fikira maxay waxaan igu dhacday ka fikira oo aakhiro iyo sabran iyo maxaan ku dhaha iyo ilaahay maxaan ku dhaha u duceyso iyo ilaahay maskaxda ka saaro aan maxaan ku dhaha aan ka fikirin waxaasi runtii wuxuu lamid yahay ninkii saaka soo toosay oo gaajo xunna way heysay sidoo kalena mana garanayo xilliga maxaan ku dhaha u cuni doono hadduuse marka qofka uu garanayo xilliga wax cuni doonana gaajada ayuu aada iyo aada ugu fikirayaa stresska aada iyo aada ugu baaniya isla sheekeysana maxaa yeelay mar walba ka fikiraya xilliga soo socaan wax cuni doono waa goormo mana garanayo markaasuu aada iyo aada uga fikiraya marka waxaa naftaada iyo teedaba aan ku leeyahay mar walba ee dhibaato nagu dhacdo aan ka fikirno aan dhahno maxaan ku dhaha aakhira iga dambaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhibaato ku sugnaa dhagaxaantaa feeraha ka hayay adduunka faqiir buu ku ahaa laakiinse muxuu ku yidhi cumarow dhib ma laha dhibaatadana dhib iguma haysa maxaa yeele waxaana baa aakhira inay iga dambayso subxaana allah saa darteed marka dhibaatada yareed iyo dhagaxaantii feeraha ka qabanayay iyo gaajada rasuulka sal alla alay wasalam uu kusoo koray dhibaata ku ahayd laakiinse dhibaato aada kuma ahayn maxaa yeele mar walba naftiisa wuxuu ugu sheekeynayay naf yahay iska dulqaada aakhiro iyo jannat firdows baa kaa dambaysa markaa naftaasaa ugu sheekaysidna dhibaatada agtaada kasoo yaranaysa marka ilaah waxaan ka baray inuu naga dhigo koo markii dhibaato ku dhacdo naftooda ugu sheekeeyo aakhiro iyo janno inay ka dambayso ilaahana insha allah uu nagu dhihi doono wajazaahum bimaa sabaruu jannatan waxariira maxaan ku dhahay dulqaadkii aad soo samayseen sabarkii aad soo samayseen dartiis ayaa waxaa ku geli doontaan janno marka haddii nafteena aan saas ugu sheekeyno waxaan rajeynayaa biidnillah maxaan ku dhahay dhibaatooyinka nagu dhacaya iyo mushkiladaha in maxaan ku dhahay stresska nagu hayaan iyo fikirka nagu hayaan iyo dhibaatada ay nagu hayaan ay aada iyo aada u yaraato laakiinse haddii aan taas ka tagno aada iyo aada maxaan ku ugu fikiraynaa xanuunkana nagu badanays marka xanuunka nagu yaraado marwalba naftaada ugu sheekeeya dulqaad iyo sabir iyo aakhirana kaa dambaysiya janno baaraka allahu fiikum waana mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu أهله والوطن حبهم في الحشا